gabadhan waa gabar goobjoog u ahayd aabaheed oo silac ku dhimanaya iyo hooyadeed oo horteeda lagu I saw my mother raped. The rapist was Chinese broker. waxaa sidoo kale intaasi sii dheer in gaajo darteed ay coos iyo bahalahan u cuneen iyada iyo hooyadeed. qisada gabadhan iyo qoyskeedaba waa mid dareen iyo murugba leh, si gaar ahna ii taabatay ani ahaan intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixinteeda iyo midda qoyskeedaba. waxaan safilayaa in adiguna ay ku taaban doonto haddii aad daawatid muuqaalkan. bal ila daabo muuqaalka sheekada dhammaystiran ee qoyskan iyo dhibta ay soo mareen. tani waa Yeonmi Park, waa gabar ku dhalatay dalka North Korea ama waqooyiga Korea, laakiin aanan jecleen sidoo kalena aanan tixgelin dhaqanka, cadaadiska iyo hogaamiyaha dalkaasi ee Kim Jong-un. waxayna ka mid tahay liiska dadka uu sida weyn u doonayo madaxweynaha dalkaasi North Korea Kim Jong-un. gabadhan aabaheed wuxuu u dhintay si silac ah, waxayna u aaseen si aanan loo aasin qof caadi ah, cabsi ay ka qabaan dowladda waqooyiga Korea darteed. iyada iyo hooyadeedna waxay gacanta u galeen koox burcad ah oo dadka tahriibiya. hooyadeed waxay isku dhiibtay kooxihii dadka tahriibinayay si ay u badbaadiso gabadheeda oo xilligaasi ahayd 14 sano jir. Yeonmi Park waxay dhalatay 4 Oktoobar 1993, waxayna ku dhalatay magaalada Haeundae ee gobolka Ryanggang ee dalka waqooyiga Korea. aabaheed Park Jae-sing wuxuu ahaa shaqaale dowladeed. hooyadeed Byeon Kim-seogna waxay ahayd caawiye dhakhtar ee ciidamada dadka ee dalkaasi. aabaheed wuxuu ku jiray nolol qurux badan, wuuna shaqaysan jiray, wuxuuna ahaa mid ka mid ah dadka sida weyn kaga shaqaysta gudaha dalkaasi. balse shaqadiisa waa la xadiday, waxaana loo diiday in uu shaqooyinka la qabto kadib markii walaalkiis sanadii 1980kii kufsi uu geystay, iskuday dilna uu isku dayay. wixii intaasi ka dambeeyey aabbahan waa uu xanuunsaday, xanuun aad u daran ayaana soo gaaray, wuxuuna joojiyey dhammaan shaqooyinkii kala duwanaa uu isaga uu qaban jiray, wuxuuna sidoo kale iska joojiyey u shaqaynta dowladda dalkaasi. nolosha qoyskanna intaas wixii ka dambeeyey waxay noqotay mid liidata. dalka waqooyiga Korea waxaa ka dhacay dhaqaale xumo aad u baahsan oo saameeyey dadka. aabbaha Yeonmi wuxuu ku qasbanaaday inuu ka ganacsado wax aysan ogeyn dowladda dalkaasi, kumana uusan wargelin, wuxuuna bilaabay ganacsi sharci darro ah. wuxuuna ka ganacsan jiray cusbada, sonkorta iyo waxyaabo kale. laakiin 2001dii aabbahan waa la xiray, xabsi ayaana la geliyey sababo la xiriira in dowladda dalkaasi uusan ku wargelin ganacsigiisa. markii la xiray Park Jae-sing aabbaha Yeonmi, xaaladda qoyskan isbeddel weyn ayaa ku yimid maadaama dhaqaale xumi ay ka jirtay dalkaasi, weliba tii ugu darneed. waxaana lagu qasbanaaday in la joojiyo waxbarashada gabadhii la dhalatay Yeonmi sababo la xiriira in la awoodi waayey in la bixiyo qarashaadka iskuulka maadaama aabbaha la xiray. aabbahood isagoo xabsiga ku jira ayaa waxaa ku dhacay xanuunkan, cudurkan Pellagra lagu magacaabo, oo ah cudur ku dhaca qofka bini'aadamka ah marka jirkiisa laga waayo fitamiinada kala duwan, wuxuuna u ekaanayaa qofka uu ku dhaco xanuunkan sidan. muddo kadib 2003dii Yeonmi walaasheed iyo hooyadeed waxay u guureen xaafadii ay ku dhalatay hooyadood ee Kowen, halkaas oo ay ku nooleed habaryartood. laakiin sanadii 2003dii waxaa la xiray hooyadood, waxaana loo xiray in ay ka guureen xaafadoodii hore iyo in aysan ku wargelin dowladda dalkaasi. laakiin bil kadib waa la soo daayay hooyadood. hooyadan iyo labadeeda gabdhood iyagoo ku nool xaafadooda ayaa waxaa la soo daayay aabbahood. 2003dii aabbahood ayay dib ula midoobeen, wuxuuna aabbahood markay dib ula midoobeen kadib uu qorsheeyey kana codsaday hooyadood in ay ka tagaan dalka waqooyiga Korea una baxsadaan dalka Shiinaha iyo dalal kale. laakiin nasiib darro, Yeonmi walaasheed Inmi waxay u baxsatay dalka Shiinaha, waxayna ka tagtay qoyskooda iyada oo aanan qofna ogeyn. qoyskan cabsi hor leh ayaa ku soo korortay oo ah in loo ciqaabo baxsashada gabadhooda Inmi darteed, laakiin arrintaas ma aysan dhicin. safarkii dheeraa ee qoyskan iyo murugtoodaba halkan ayuu ka bilaabanayaa. 2007dii habeen ka mid a habeenada 30kii bishii Maarch, Yeonmi, hooyadeed iyo aabbaheed waxay galeen safar dheer. waxay la heshiiyeen koox dadka tahriibiya, waxaana ka haray aabbahood oo xanuunsanayay markaas, wuxuuna ku amray in iyaga ay baxaan. hooyadeed iyo iyada oo keliya ayaana raacay kooxihii dadka tahriibinayay, waxayna dhex mareen
Yalu River oo ah webi aad u qabow badan biyihiisa waxayna ku gudbeen buuro waaweyn oo la mariyay waxayna markii dambe tageen gobolka Jilin waxayna tahriibayaashii weydiiyeen inay arkeen gabadhooda Inmin lagu magacaabo waxaana markii dambe iyagu ay iska dhaadhacsiiyeen in ay geeriyootay gabadhooda aad bay u naxeen murugtii koowaadna halkaas ayay kaga bilaabatay waxayr kadib waxaa safarka kula soo biiray aabihii oo muddo kadib soo baxay isagoo aad u xanuunsanaya intii safarka ay ku sii jireen aabahood xanuunkii ayaa ku sii batay ugu dambeyntiina waa uu geeriyooday hooyadii iyo gabadhiina waa ay murugoodeen maadaama ay dumar ahaayeen laakiin oohintooda kor uma aysan qaadi karin sabab la xiriira in la maqlo lana qabto maadaama si dhuumasho ah ay kaga baxsanayeen waddankaasi waxayna ku qasbanaadeen in aabbaha ay aasaan maadaama uu geeriyooday aabbihii si qarsoodi ah ayaa loogu aasay buur weyn hoosteeda 2 qofood ayaana ka caawiyey in buurta hoosteeda lagu aaso aabbihii sidaas ayayna kaga tageen iyagoo aad u murugaysan aabbihiina ka geeriyooday gabadhoodiina raq iyo ruux aysan meel ku sheegin markii dambe waxay gaareen halka lagu magacaabo Mongolia halkaas oo dhibaato kala kulmeen laakiin waxay kadib waxay gaareen dalka koonfurta Korea ama South Korea Yeonmin iyo hooyadeed kadib waxay gaareen dalka koonfurta Korea markay gaareen waxay degeen halka lagu magacaabo Azan halkaas ay noloshooda ka bilaabeen dukaan ay ka shaqeeyeen gabadhiina kawaliyad ay noqotay sidoo kale gabadhan Yeonmin lagu magacaabo intaas wixii ka dambeeyay waxay dhameystiratay waxbarashadeeda maadaama markii hore ay waxbarashada sanadkii labaad ay kaga tagtay dugsigii sare ay dhameysay sidoo kale waxay ka qalin jibisay jaamacadda Dunkirk lagu magacaabo oo gudaha dalkaasi ku taala waxayna markii dambe la midoobeen bishii Abriil 2014 gabadhoodii Inmin lagu magacaabo iyadu ka soo baxsatay dalkaasi koonfurta Korea aad bayna u farxeen markii ay la midoobeen gabadhooda Yeonmi Park markii dambe waxa u suurta gashay in booqasho ay ku tagto dalkaasi Mareykanka halkaas oo markii dambe ay ka jeedisay khudbad ay kaga oohisay dad aad u fara badan oo halkaasi isugu yimid Park gabadhan waxay kamid tahay gabdho loo doortay ama BBC-da 100 gabdhood ee ugu saameynta badnaa waxayna ku jirtay group lagu magacaabo Helena sidoo kale waxay iyadu ilaa iyo hadda ka shaqeysaa ama u doodaa dadka aanan tabarta lahayn waxay leedahay gabadhan bar YouTube oo ay ku xiran yihiin dad aad u fara badan bartaasina waxay kaga hadashaa dhibaatooyinka cadaadiska iyo siyaasadda guud ahaan ee ka jirta dalka waqooyiga Korea waxayna si weyn u dhalishaa una nacab tahay madaxweynaha dalkaasi North Korea Kim Jong Un waxayna sidoo kale sheegtay in uu yahay gacan ku dhiigle dadka rabo inuu ku amro waxa isaga uu rabo oo kaliya waxay sidoo kale gabadhan mar sheegtay inaysan doonaynin inay dib ugu laabato dalka lagu magacaabo waqooyiga Korea sabab la xiriira dhibaatooyinka cadaadiska iyo dhibta aadka u faraha badan ee dalkaasi ka jira waxayna marar badan ku celcelisay in marnaba aysan ku fikirin inay dalkeeda hore ama dalka ay ku dhalatay ay dib ugu laabato hadda waxay haysataa dhalashada waddanka Mareykanka iyo sidoo kale dalka South Korea waxayna ku nooshahay nolol aad u qurux badan inkastoo aabaheed si rafaad ay ku weysay hooyadeedna iyada darteed rafaad iyo dhibaato ay u gashay safar dheer oo aad u daranna ay soo galeen sidoo kale gabadhan iyo qoyskeedana markii dambe iyagu gaajo badan oo ka jirtay dalkaasi waqooyiga Korea ay ku qasbanaadeen in ay cunaan coos si lamida inay cunaan bahalo maadaama aysan awoodin cunto in ay helaan dalkaasi dhaqaale xumadii ka dhacday hadda waxay kamid tahay gabdhaha saameynta ku leh dunida waxayna sidoo kale u doodaa dadka aanan tabarta lahayn dowladda dalkaasi waqooyiga Korea ayayna si weyn u dhaleecaysaa waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena tani muuqaalkeena xiga imaaninta biri waxaa idin rajeyn caafimaad bashbash iyo baraare waxaan ahay Joola Shaakir amaana Allah